qaato naftaan والله u baqay wallahi ina waa والله أنا baqay saasaan u orday waa والله fakar waxaan idhi inteed farxad ka heli karta waalidkaaga u tag naf baa ii geysay hooyooyinka inaan u tago kulantii wacan oo wanaagsan akhyaarta inagu xiran idilkiinba meel kastoo joogtaan xilli kastii waqti kastay idin tahay shukri sharaf official channel ayaad nagala socotaa hadahayo galan idinkaga soo gudbino muuqaal aan isdhihi karno akhyaarta idinku xiran waa ay ka heli doonaan waa tahay haddii aad nagu cusub tahay fadlan kusoo dhawow channelkeena shukri sharaf official channel waan filayaa inaad ka heli doontid lana wadaag asxaabta mahadsanid waa tahay gabadha baraha bulshada iyada qudheeda caanka ka ah ee la yiraahdo hodan online hodan cumar oo baraha bulshada caanka isla markaana soo gasha barta youtube-ka isla markaana kusoo gudbisa waa qadeeyay biyo la isku soo shubay baati waa lii soo duwa jeedin horta daniya afaar kale soo dhameynay kadib baradhe iyo bajiye maalintii baradhe iyo bajiye bari ay tusday alla gabdha reer dirdhaba meeshaan idinka ala macsan kor hodan cumar hodan online ayaa muddo haatan ku dhow 5 bilood ka hor waxaa geeriyooday seegeedii allah u naxariistay abshir oo isu dhalay 2 caruur isla markaana ay ku timid mowtul qafle hodan online dadka kala socday snapchat-ka ayaan aniga naftirkeyga kamid ahaa geerida habeenkii allah u naxariistay abshir ku timid ayaa 24 saac ka hor waxaa laga arkayay cidii la socotay damaashaadka nolol maalmeedka qaybta ka ah ee dadku social media soo dhigaan markay dukaamaysanayaan markay maqaaxi wada tagayaan iyo wixii lamid ah balse waagu dadku waxa uu ku bariyay geerida mowtul qaflaha ee abshir ku timid sheekadu waxa ay ka dartay markii ay hodan online ilaahay u naxariistay dadku la wada murugoodeen una duceeyeen inuu qalbiga u dejiyo in markaasi waqtigii u dhamaatay ciidada ee hodan online soo labisatay isla markaana nolosheedii caadiga ahayd dib u bilowdo hodan online waxa ay sheegtay inay seegeedii aadka u jecleed ee weyday ee ku qasban tahay inay nolosheedii wadato dad badan oo ku xiran hodan online iyo baraha bulshada ayaa durba dhaliilay hanaanka ee u dhaqmeyso hodan online hodan online ayaa sidoo kale waxa ay soo gashaa baraha bulshada qaybaheeda kala duwan sida tiktok-ga instagram-ka snapchat-ka dad badan ayaa ku xiran oo falowgareeya balse falowgareynta dadka ku xiran ayaa qayb ka mid ah waxa ay ku hayaan colaad markii ay tagtay diridhabe oo ay degan yihiin familigeeda isla markaana ay sheegtay inay ku barbaartay kuna dhalatay ayaa waxa ay dhaheen qoftani uma eka qof geeri gashay muddo haatan laga joogo 5 bil ka hor wallahi أنا baqay saasaan u orday waa fakar waxaan idhi inteed farxad ka heli karta waalidkaaga u tag naf baa ii geysay hooyooyinka inaan u tago wax kale igama ahayn guriga inaan kuwaashaa ka baqay والله وارنتا أنا إدارسناي ما أنت أو متقاعد أنا وارن وبقى inaan waasho ilmahayga layga qaato naftaan u baqay wallahi أنا baqay saasaan u orday waa fakar waxaan idhi inteed farxad ka heli karta waalidkaaga u tag hodan ayaa iyadoo martaasi ka jawaabayso waxay ay tiri waan ku qasbanahay nolosheyda inaan wato marka dadka dhaliilaya waxa ay leeyihiin qoftani awalba ma jecleen saygeeda nolosha ayaa waxaa loo baahan yahay in ay socoto isla markaana aan loo dhutinin dhibaatada nolosha maalmeedka dadka la soo dirsa dadku waa kala aragtiya haddii nolosheeda go-aankeeda iyadoo ay leedahay isla markaana ay soo labisatay
waxaa hareer socda faragelinta ay ku hayaan Soomaalida. Dadka Soomaaliyeed ayaa badanaa dadka ku dhaqan qurbaha waxa ay fahmi karaan dhaliilo joogto ah, talooyin joogto ah iyo colaad joogto ah. Kaba sii daran markaad baraha bulshada u soo gashid oo halka u soo fadhiisatid iyadoo ay tahay kadar oo dibidhal. Hodan online ayaa waxa arrinteedii ku soo kordhay inay xalayta soo gashay TikTok isla markaana oohin afka furatay. bal aan idin maqashiyo codka Hodan online ee oohinta ah isla markaana ay tiri hadii aan farxad doontay ehelkaygii aan ku orday waqtina la soo qaatay si aan isku ilowsiiyo murugadii isoo gaartay maxay tahay wixii qalada oo aan sameeyay. والله أنا ساسانو أرد وافكر وحني أنت فرحت كيلي كرت والد كاغا أوتك نف باين كيسي هويو ينتين أنا أوتو وحكا ليغا ماهين قريقينا كواشا كبقي والله وارنتا والله وارنتا أنا يا إلى سناي دوغا مانتك أو متقاطع وارنتا وبقينا نواشو المهيغا ليغا قاتو نفتا وبقي والله أنا بقي ساسانو أرد وافكر وحني أنت فرحت كيلي كرت والد كاغا أوتك نف باين كيسي هويو ينتين أنا أوتو وحكا ليغا ماهين قريقينا كواشا كبقي والله وارنتا والله وارنتا أنا يا إلى سناي دوغا مانتك أو متقاطع وارنتا وبقينا نواشو المهيغا ليغا قاتو Hodan markii ay tagtay Diridhabe ayaa reerkeeda waxa ay ku soo dhaweeyeen muusig yar oo degan isla markaana ay la ciyaareysay qaar kamid ah faamiligeeda. balse labiskeeda iyo diraca ay xirneed ayay dadku dhaliilayeen. dhaliishii ayaa cirka isku shareertay baraha bulshada ayaana lagu falanqeeyay Hodan online maadaama ay tahay baraha bulshada gabdhaha soo gala kuwa ugu caansan isla markaana social media isticmaala. oohinta Hodan online ee xalay ayaa dadku inta samaha jecel waxa ay sheegeen in gabadhani lagu hayo dhib isla markaana laga xun yahay nolosheeda faragelin ba'ana halkaasi ay ka socoto. adiga na daawanaya sidee u aragtaa nolosha Hodan online miyaynan xor u ahayn nolosheeda iyo farxadeeda. way murugootay waa sax oo saygeedii wuu dhintay Allah u naxariistay bal sameeynan ku habooneen in nolosheeda iyo sidee u soconayso loo daayo maadaama aanu nahay dad xura isla markaana dad waaweyn oo qaangaara noloshiisana hoggaanka inuu u hayo oo qofka u madax banaaya. faragelinta qaawan ee la isku hayo ayaa waxay tahay mid baahsan ee ka jirta baraha bulshada. qurbaha sidaan ognahay waxa ka jira depression ama depressionka waxa loo yaqaan isla markaana taasi oo dhalisa cidlada iyo fikirka iyo dadka dhibaatooyinka noocan oo kala markay ku dhacaan sababi karta in qofka noloshiisii uu samata bixin waayo isla markaana lagu tilmaamo qeyru mas'uul. hanaanka iyo nolosha sidoo u watana ay dawladaha la joogno ay sababto in caruurtii markaasi lagala wareego ay dawladaha la joogno gacanta ku dhigaan kuwaasi oo loo geeyo dad kale oo adabtin ku sameeya caruurta korsada amaba haya mas'uuliyadda caruurtana loo dhiibo. waxaana qurbaha sidoo kale ka jirta in awlaada qofka dhalay la yiraahdo kama bixi kartid oo mas'uuliyadii bataatanba laga tirtiro laga xayuubiyo. aabihii lagu fakar lahaa haduu Ilaahay meesha ka saaro gabadhani social media soo gashay isla markaana nolosheeda ku faraxsan nolosheeda dabaranaysa maxay tahay culayska ay ku hayso hanaanka ay u libisatay iyo hanaanka ay nolosheeda u wadato. Hodan noloshaada xurbaad u tahay walaal hore u soco.
hodan waxaan ku leenahay oohintaada iyo waliba murugadaada dadka qaar ma fahmi karaan iyo dhibka ku haysta walaal waxaan ku rajaynaynaa waqtigaaga iyo farxadaada inuu ilaahay ku ziyaadiyo awlaadana uu allah kula koriyo ayaa khiyaarta nagu xiran inaad ka heli doontaan muuqaalkan aan idinkaga soo gudbinay hodan online nolosheeda iyo faragelinta ay ku hayso ummadda Soomaaliyeed qaar ka mid ah taasi oo ku dhaliilaya hanaanka ay nolosheeda imika u samata bixinayso maadaama ay tahay hooyo korsanaysa 2 caruur oo agoon ah isla markaana saygeedii uu ka dhintay muddo haatan laga joogo kaliya 5 bilood هاي وقديي بير اسكو سو شوي باتي ولي سو وجيدين horta daniya afaar kala soo dhameynay kadib baradhe iyo bajiye maalinta baradhe bari ay tusdo ala gabdhareed dirdhaba meeshan idinka kala macsan kor kaygi goofe usheeya tagayo waan ku dawlayayo wali ka dhulsibayaa dhafaga caaso lago